baha ceerigaaba taga oo aan weli naga dhoweyn dhismaheeduna aanu wada dhammayn deegaanka waridaad oo ah kala badhaha ama xundurta Somaliland ee bari ilaa galbeed laga soo bilaabo saylac ilaa ceelaayo oo boosaaso darisla ah ayaanu istaajiyaha baabuurka ku qabanay waqti cawaysnimo Ibrahim Aid oo ka mid ah odayaashii aasaasay deegaanka waridaad waqtigana ay da'diisu kor u dhaafayso 82 sano jir warina deegaankii uu aasaasay ku sugan ayaa noo waramay taa anigu waxaan aqaanaa horta bari halka Soomaaliland xagga xeebta uga joogtaa baan aqaanaa ceelaayaa la yiraahdaa laasqori baanu markaa intaanu laash kaga baxnay in Cabdilaahi Sharale oo ma jeerteena baa tusado laas meesha loo laasqori baan in badan ka soconado waxa markaa noo dhaweyd meesha la ceelaayo markaanu joognay boosaasan noo dhaweyd isaga igu yiri halkaas Talyaani iyo Ingiriis calaamad u ahay Ingiriisna markuu dalkan doonayay isaga Talyaani la kala qabsadka akhyaar buu galiyay nimanka loo hartay uu tago wuxuu yiri wala kala xadeynaya dhulkana wala kala gooynaya ina mantiqadna Talyaani ku raacdaan oo ma jeerteen iyo Talyaaniga raacdaan iyo ina gobolada waqooyi Ingiriisku xukumo raacaysa soo kala doorto qolo waliba in cali shiraaka ahaa nimanka loo ma jeerteen waxa la warsangeliyo hadii qolo waliba labada reer hartay waxay aan gobolada qoyaan raacayna Talyaani iyo ma jeerteen isfurimayn marka waxa weeye halka kala badha saylac iyo ceelaayo halka iminka inaga beegan hadii aan layn maayo qooyo toosan ayay noqonaysaa oo aan isleeyahay war makarin baa xagga badda ayaan rajaynaya inay kala barayso مربوح يسورة بعناد وحصور